farxad weyni ah inaan idinkala soo qayb galo daahfurka mashruuca kan iskaashiga caalamiga ah oo runtii aad iyo aad muhiim ugu ah Puntland gaar ahaan wasaaradda waxbarashada aad baan ugu faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo runtii keentay iskama iman lacagyogan hadda halka laga sheegayo dheeraadka waxay ku timi juhdi la geliyey iyo aqoon waxaan wasaaradda ku bogaadinayaa runtii nasiibkeeda wanaagsan oo dhowr arrimood dhowr qodob ka kooban marka u horeysa wasaaradda waxbarashadu nasiib waxay ku leedahay waxaan qirayaa madaxweynayaasha soo mara badi iyadoo ay u heshay nasiib u heshay inay macallimiin soo ahaayeen haddii aan ka soo qaado madaxweynaha hadda jooga Siciid Deni waa macallin uu ahaa waxaan ogahay inuu ahmiyad gaar ah uu siiyo oo aanu cidna ku hadlayn wasaaradda waxbarashada waxaan ogahay Cabdiweli oo ka horreeyay inuu macallin ahaa waxaan kaloo la socdaa in asaaskii intii hore way iska maxay tahay habhasad bay iska ahayd iska karma dhacays laakiin 2009kii wixii laga bilaabo wasiirkeedii oo hadda fadhiya halka iiga muuqanayay juxo inuu isna ahaa uu halkaas soo gaarsiiyey oo ahaa wax lagu faano uu keenay waxaan kaloo ku kalsoonahay wasaaradda shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyo wasiiradeeda runtii oo aan badidooda aqoon u leeyahay in ay shaqadooda lagu kalsoonaan karo waxaan qirayaa sidii wasiirka arrimaha guduhu sheegayay in ay halka kan u soo dooran jireen dowladaha federaalka xubnaha federaalka ah iyo dowladda federaalka qudheeduba runtii waxaan rajaynayaa hadda wasiir haddii xadhijiilkii yaraa iskaba dhammaaday ama meel fiican soo gaadhay intaa haddaan ka gudbo runtii wasaaradda dadaalkeeda waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda dadaalka ay muujisay waxaan u mahadcelinayaa hay-adaha kala shaqeeya runtii oo ay UNICEF ugu horeyso iyo intii kale ee mashruuca iskaashiga iska kaashaday ka qayb galay haddaan ka soo qaado arrimaha maxay tahay maamul daajinta runtii anigoo xoogaalo ah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka runtii waxyaabihii laga reebay inay meel wanaagsan marinayaan oo maamul dejintii ay si fiican maxay haytay ay u wadaan siina kordhiyaan sida ay u maamuleen COVID-19 wasaaradda waxbarashada iyo Puntland runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa inay sidaa ku sii wadaan ardayda kala fogaanshihii iyo maxay tahay waxbarashadaas ah la kala fogeynayo ama taa ah maxay tahay suumka iyo ay ku tababaranayaan intaasoo dhan aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waa dadaal runtii inay wixii maxay tahay COVID-19 iyo arrimahan hadda xanuunada socda sidii aynu uga wada dadaali lahayn waa laynooga baahan yahay haddana meel fiican maraya maanta shirka intaasaynu maanta ku soo gabagabaysanaa daahfurkeennii aad iyo aadna oo idinku mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa in halkaas aad ka sii wadaan